وأنا سلام دمان صاحبada ku xiran channelkeena bidaayaad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago sheekooyinkii ugu dambeeyay ee arrimaha aflaamta laga qoray kuwada ugu hadalhaynta badan ayaan idin wadaagi doonaa balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa channelka kusoo biirto muuqaalka dadka shalaag inoo saar sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal sheekada ugu horeysa warbixinta aan ku bilaabi doono xabiyaan gabdhaha kale ah yaami sidoo kale aada sharma ayaa markan ku midoobi doona shaashada labadan jilaa sanadii ugu dambeeyay waxay kaalin weyn ka qaateen aflaamo guuli waaweyn gaar marka la eegana labadooda inay wada shaqeeyaan ama labadan isjid aad ayaa loo wada deynanayay labadan gabdhood waxay ku midoobi doonaan film yani sheeko aan yani waxyaabaha khuraafaadka hindidu aaminsan yihiin laga sameeyey oo horor ah kaasoo lagu magacaabo damusuur filimkan waxaa agaasimo ka ah ninka lagu magacaabo Damanil Mehta halka uu soo saare ku yahay maalgeliyaha caanka ah Vishal Rana sidoo kale filimkan waxaa asagana soo saare kale ka ah ninka lagu magacaabo Vicky Spell filimkan inkastoo aan weli shaac laga qaadin waqtiga la daawan doono haddana update-kiisa oo dhameystiran gadaal ay ka shaacin doonaan sida ay sheegeen kooxda filimkani dhanka kale waxaa weli wacdara dhigaya filimka lagu magacaabo Loka Chapter 1 Malayalamka ah marka la eegana filimkan wuxuu u dhaafay in ka badan 300 oo karoor waxa uu noqonayaa mid kamid ah aflaamta lacagaha ugu badan soo xareeyay ama ka talaabay 300 oo karoor wuxuu sanadkan garaacay aflaam uu ka mid yahay Imburam oo Mohanlal hogaamiyo ka yahay sidoo kale filimka lagu magacaabo Manjumil Boys marka la eegana filimkan waxa lagu qarash gareeyay oo kaliya 30 karoor haddase waxa uu sii dhaafayaa in ka badan 300 oo karoor sheekooyin kale waxa qayb ka ah maanta waxa sanad gurida dhalashadiisa 83 u dabaaldegay jalaaga caanka ah Amitabh Bachchan kaas oo ah mid kamid ah rugcadayaasha ugu weyn fanka Hindiya qaasatan Bollywoodka shalay waxa iyadana u dabaaldegtay sanad gurida dhalashadeeda 71 gabadhii hadda ka hor jecel wadaagii ah jireen ee Qaderi marka la eegana sheekooyin kale laga qoray arrimaha aflaamta waxa qayb ka ah saaxiibayaal wiilka yar lagu magacaabo jalaaga lagu magacaabo Raghuv Jugal wuxuu ammaan kala dulacay Shah Rukh Khan xaaskiisa Gauri Khan waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid kamid ah hablaha ugu yani soo dhaweynta wanaagsan waxa uu yiri mar walba guriga Shah Rukh Khan aado guri waa qofku dhahaysa soo dhow maxaa cunay maxaa abaysa marka waxa yiri waxaan aad ugu jeclaaday habka kalgaceelka ay sida gurigaas dadka loogu soo dhaweynayo sheekooyin kale waxa qayb ka ah saaxiibayaal marka la eego aflaamta tiyaatarada saaran ayaan markaan eegi doonaa iyo natiijaan sida ay noqdeen haddii aan eegno filimka Kantara Chapter 1 9 ma aan 10 maalin oo tiyaatarada Hindiya saaran yahay waxa uu soo xareeyay in ka badan 112.62 karoor yani waa luqadda Hindiya marka lagu daawado lacagaha uu soo xareeyay dhanka kale total India marka la eegana gudaha Hindiya dhan wuxuu ka soo xareeyay in ka badan 352 karoor isku dar dal iyo dibad waxa uu soo xareeyay filimkan ama uu ka talaabay 500 oo karoor saaxiibayaal natiijahan waa filim super hit ah waqtigan la taagan yahay dhanka kale waxa asigana tiyaatarada Hindiya saaran Farun Dhaban filimka hogaamiyaha ka ee lagu magacaabo Sunny Sankara Kiki Tusli Kumar filimkan marka la eegana waxa lagu qarash gareeyay in ka badan 70 karoor lacagaha uu soo xareeyay inta maalin oo tiyaatarada saaran waxa lagu sheegaa 41 karoor oo kaliya marka la eegana total India wuxuu ka soo xareeyay 50 karoor isku dar dal iyo dibad marka la eegana filimkan waxa uu dhaafi laayahaba 60 karoor natiijaan waqti hore faloob ayuu noqday ama filim guul dareysta saaxiibayaal markaan haddana eegno maanta oo kale aflaamta soo bax kuwada ugu caansan waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Sky Spingy waa filimkii ugu dambeeyay ee sameeyso gabadha lagu magacaabo Zaira Wazam taasoo markii dambe ku dhawaaqday inaysan wax dambe film sameyn doonin diinteeda darteed gabadhu waa muslimad marka laga filimka waxa hogaamiyalkooda Abdiyaanka Jabra iyo Farhan Akhtar sidoo kale Zaira Wazim ayaa qayb kale ah marka la eegana filimkan maanta oo kale 11 Oktoobar sanadii 2019 ayuu soo baxay natiijaan faloob ayuu noqday ama film guul dareysa saaxiibayaal haddaba intaas ayaan kusoo gogobaya muuqaalkayga fadlan haddaad ka hesho muuqaalka like noo saar kanaalka dad ku cusubtaan ugu soo biir muuqaalka dad ka heshana sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena